بسم الله وبرنامج كيني تحناها هاي قصصك ويل لن يراه أو نولا حلقي سلفك أيا وحود دمعي إنه أصعداله مقالة بغداد سوء علمي أقون أقرات سدو ويل كيرا مركو ديار قروبي أيا هويدي ويرتي وحكو تري ويل كيجيو أفرتن كان درهم قاضو أو جدمر إيا جسعين كدقو دردارن كان إيقا قاضو دردارن كمحو أها waxay ku tiri hooyo xilli kasta iyo waqti kasta iyo meel kasto aad joogto wiilkaygiyo runta sheeg oo runta ku dhaqan wiilkii yaraa ay dadkii uu la safri lahaa way socdaaleen safarkooda bilowdeen markay dariiqa dhaxda sii marayaan ayaa qolo tuuga ah oo burcad oo dadka furto la kulmeen wiilkii yaraa iyo waxa way dadkii u la socday burcadii markay wiilkii iyo xulafadiisa istaajiyeen ayaa waxay damceen inay baartaan oo ka qaataan wax alla wixii xoolo siteen markaas wiilkii yaraa gacanta taagtay wuxuu yiri niman way dhageysta anigu waxaan wataa 40 dirham iyo dharkeyga wax kale ma sito waana ka markaas la yaabeen oo yiraahdeen wiilkan dhalinyarada xoolihii uu haystay iska sheegay muxuu ahaa way wadeen oo waxay u geeyeen horjoogahoodii burcadda horjoogihii iyo hogaamiyahoodii u geeyeen soo u wareysto wiilkii yaraa markii horjoogihii loo geeyay ayaa horjoogihii wiilkii yaraa wuxuu weydiiyay wuxuu yiri niyahow maxaa kugu kalifa xoolihii aasidatay inaad iska sheegto markaas ninka dhalinyarada ah wuxuu yiri niyow anigu waxaan u socday oo socodkaygu ku wajahnaa inaan cilmi raasado nafteyda jahliga ka saaro aqoon iyo nuurna u raadiyo midda kale to waxaan oofinayo xoolahan idinkugu sheegay waxaan sito dardaarankii hooyaday iyo ballantii hooyaday aan ka soo qaaday markaas ninka horjoogaha wuxuu yiri oo ballantii iyo dardaaranka hooyada muxuu ahaa wuxuu yiri hooyaday waxay igula soo dardaarantay xilli kasta inaan runta sheego markaas hadalkii waxa saameeyay oo saameyn badan uu ku yeeshay ninkii horjoogaha tuugada ahaa markaas wuxuu iskugu yeeray ninkii tuugada kale wuxuu yiri nimayo kaalaya ninkan dhalinyarada ah wuxuu xoolihiisa inoogu sheego inooga qarsan waayay hooyadiis ballanteedu uu finay annagana waxaan buurinay ballantii Allah subhanahu wa ta'ala aan la galnay oo ahayd alastu bi rabbikum قالوا بلا شهدنا بلانتاسانو burinay waxaana la gudboon inaynu ka toobad keenno waxaan xuno aan ku jirno dadkaana xoolahooda aan u badbaadino wax alla waxaan ka qaadan aan u celinno anagana aan ilaahay u noqonno sida darteed ninkii dhalinyarada ahaa wuxuu badbaadiyo ilaahay sabab ooga dhigay dadkii socotada ahaa oo la socday iyo tuugadii dadka jidka ku dhibi jirayba qisada maxaan ka faa'iideynaa qisada walaalayaal waxaan ka faa'iideynaa waa marka koobaad horta ubadkeena inaanu ku abaabino oo barno runtu inay sheegaan oo runtu ka wehel dhigtaan waa mid labaado inaan annaga laftigeena ubadkeena markaan la dardaarmayno aan ka fiirsano waxaan kula dardaarmayno hadaa tahay barbaariye waalida mise bare macallina waxaad u baahan tahay inaad barato cilmiga barbaarta lagu barbaariyo hada wabillahi tawfiiq wasalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh